Arsenal waad ku tartamaysaa top 4 idiga koobkiinu ka soo haay hadaad 2-3 ciyaartooy kala fiican ku soo dartaan waxaan qabaa sanadka dambe inaad maybe top 3 iyo top 2 ga ku tartantaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو إذا لا سودا وهذا مركلة ورجينا في عندنا نوانزين في عنها انت أنا قد بدأ كهذا لما أنتوا كذا قلين كنا كي قاعدات كوعد الصوت هاي بليز سبسكرايب ده لايك ده كومنت كنا كبحي عدي أنا تكون عسبيننا كنا قاعد كوحدنا إننا لايك كومنت كبحي أتبادل مع سنتو حبكم إياه لسانا كنا حوينا وترسا انت كبعدي نوحن قال دونا لبا قضب ما أنت labadaa qodob kale qodob waa qodobkeenii dee taxanaha iyo Messi arrinkiisa halkuu maraya qodobka kalena waa qodobka suuqa kala iibsiga halkuu maraya Messi arrinkiisa hadaynu ku horeyno maxaa ka soo baxay shirkii Messi aabihii oo ah ajankiisa iyo madaxweynaha Barcelona ay kulmeen shalayto hadalkii laga keenay muxuu ahaa ma loo ogolaaday ninkii Messi inuu iska tago oo meeshu jecel ka ciyaaro mise ninkii Messi waxa lagu yiraahdaa fadhi bartaas dad ciyaaraysan kala ciyaar hadii kalena dee sanadkan Barcelona joogaysa magaca ku qornaanaya hadaynu yar qodobka aynu eegno Messi shirkii shalay waxa ka soo baxay ninkii Barcelona haystay wuxuu wada hadalkeen ka wada hadlayna waa hal midun waa kaasoo ah Messi inuu kordhiyo heshiiskiisa oo 2 sano ku daro haddaad mid labaadan isku qasban kuugu darana oo sidaad rabtaan la idin yeelo 700 milyan koox la timaado ciyaartoyguna uu fasaxan yahay marka ninka odayga ahaa meel uu ka hadlaba waa loo diiday haloonin kaaga u sheeg traininka kaalay hadii kale maalintii 500 kun baa lagu ganaaxaya oo daily ah marka ninkii Messi lacag baa ku socota halka iyada hadii uu iimaan waayana as long as uu iimaan waayo lacagtaas waa ku soconaysaa koox la timaado 700 milyan mooyaane meel uu socdo ma jiro waa joogay Barcelona arrinka kama hadlaysa hadii kalena 2 sano heshiiska noogu dalbaabay taagayeen iyagu inay sii kordhiyaan bay rabaan marka hal qura meesha yaala wuxuu yahay Messi meel uma saxdo horta kow inuu sanadkan oo Barcelona joogo sanadka dambe markuu saa horyaal ku dhamaado still waa heshiiskiisa way ugu jirtaa markuu sidaa horyaal ku dhamaado Champions League 10 cisho gudahood inuu ka tagi karo kooxda marka si aan loogu adkaynin sidii hadoo kale haday dhacdo because wali xanuunadii iyo sababihii baajiyay league season-kii dhawaa mu dhamaanin marka in case ay dhacdo inuu wax dib u dhacaan oo kale timing-kii uu waasho si aan loogu adkaynin Messi wuxuu tagi karaa wali Champions League iyo League oo dhamaanin dhexdeeda ayuu oran karaa waxa leeyahay intan soo caawi waxa la ciyaartamada la ciyaaray inagu kala kaxay meesha marka su'aasha meesha taala waxay tahay Messi ma ka go'an tahay inuu Barcelona ka tago oo sanadkaas oo dhan inuu meeshaas lacag u haysto iska bixin karaa oo lacagta bixiyo oo xataa haday diidaan in dhinacna u dhaqaajiyaan sanadkaas oo dhan bila ciyaar noqdo sanadku markuu dhamaadana uu tago mise Messi wuxuu doonayaa haday uu suurtagal weeday sidii uu doonayay inuu si niyada ugu ciyaaro Barcelona hadii uu sanadka dambe ka tagayo iyo hadii ay heshiinayaan labada qodob kale idinku soo aragtaan la soo share garay hadii la yiraahdo waxa kale oo anagu qaba shakhsiyan Messi haduu garoonka ku soo laabto taageerayaashu waynu aragnay in badan haduu ciyaartooyda kooxda waan ka tagayaa way iiga dhamaatay oo for some reason ay dhici weydo ciyaartooygaas inuu ka tago taageerayaashu buu bayaan laakiin I don't think Messi inay buu ku dhacayso wuxuu ka galabsaday amba wuxuu nimankaas u qaaday ayaa 13 jeer ka badan wuxuu u qaaday ciyaartooygii ugu fiicnaa Barcelona soo mara adiguba ka doonta ka dhigo Ronaldo ka dhigato dad Ronaldo ka dhigato dad Maradona ka dhigato dad Rivaldo ka dhigato wax kasta uu ka badan yahay marka meeshu nimanka gaarsiiyay ma jiro marka taageerayaashu waxaan u maleynayaa inay istaagi doonaan waynu eegi doonaa arrinkaas meeshu ka sii socdo laakiin arrinkaas waxaan u maleynayaa inuu ku dhamaanay Barcelona sanadkan horta inuu ninka odayga cagaha dhiganayo suuqa kale kooxda Manchester United sidaynu videogeena hore kaga hadalnay laacibkeedii koowaad waa la soo wareegtay heshiiskii waa dhamaysay Van de Beek waxaanu gashan doonaa funaanada 34 oo saaxiibkiisii Holland amba Maghrib ka soo jeeday dhalashahan uu ku xusi doono maadaama inay aad saaxiib u haayeen oo shabaabka ka soo wada baxeen ninkaas waa jooga hadda waxa marka Manchester ay hadlaysaa laba heshiis
hadday labada heshiis u hirgalaan Manchester Unitedna anu waxaan qabaa seasonkan cusub way ku tartami kartaa horyaalka. waa hadday difaac ku soo daraan iyo hal weerar. halkii weerar haddaba waxaa la isla dhaafayaa Manchester United ma waxay u baahan tahay ciyaartoy koornaha ka ciyaaro Sancho kale oo eryanayso, si Manchester United waxay u baahan tahay Harry Kane ciyaartoy kaasoo kale inay keento. kee u baahan tahay in badan. Harry Kane weli waa yar yahay, intaana Ingiriiska uu ka ciyaarayay, top scorerka 2 jeer buu noqday. Harry Kane ma noqon karaa nin uga muhiimsan Sanchadan ay raadinayaan? shakhsiyan waxaan qabaa haddii Manchester United Harry Kane daba gasho istiraahada 100 milyan iyo 120 milyan ay ku raadinayaan ninkan ku soo qaata, Manchester United inay horyaalka ku tartami karto with Harry Kane. difaacana Maguire horta waa 80 milyan oo khasaaray ninkaas, oo de marna muu gaarin mustawihii difaacyadii Manchester oo dhan ee soo maree de magaca ku lahaa ay taagnaayeen, laakiin Ingiriis ahaan 80 milyan lagu bixiyey. ciyaartiisana waynu aragnay, marka wuxuu u baahan yahay nin awood badan oo ag istaaga oo khibrad uu isaguna u noqdo, ninkana fudud kana wanaagsan oo hadday taakalka noqoto iyo hadday noqoto gameka sida loo akhriyaba markaa kaasi ku noqon doonaba waynu eegi doonaa. Kululaabi isaguna waa Napoli waxay tiraan fasaxnaa walow 29 jir yahay, haddana waxay ku rabaan lacag 70 milyan iyo ka badan. Napoli ayar lagama soo qaaday ciyaartoy, waxaana jecel yihiin in ciyaartoyada free ku qaataan. marka waynu eegi Manchester United hadday khadka difaaca iyo Harry Kane keento tartanka horyaalka way ku jirtaa sanadkan, laakiin hadday Sancho keento iyo khadka difaaca waxaan qabaa top 4 way soo galaysaa sanadka seasonkan ma xagaaga ka dambeeyaan horyaalka way ku tartami doontaa. Chelsea kulli iyadu wax cusub maaha. Kai Havertz oo aynu ogeyn inuu soo socday, heshiiskiisu waa dhammaaday. saxaafadaha qaar waxay leeyihiin caafimaadkii axadii baabuu maray, walow Sky Germany uu maanta yidhi caafimaadkii muu marin, laakiin labada kooxood way heshiiyeen. labada ciyaarood nationalka markuu soo ciyaaro halkaasoo caafimaadka mari doona, kooxdiisana uu soo wareegi doonaa. Chelsea waxaa kaloo raadinaysaa goalkeeper. hadda waxay u dhowday inay la soo wareegto goalkeeperka kooxda Rennes, Mendy, 17 milyan lacag intaa leeg ay ku keenayso. keebana inay haysatay rabtaa, markaa ay labadaas tartan uu ka dhexeeyo, maadaama goalkeeperkooga labaadna aanu hayn de nin ay ku tartami karaan amba keeba wax ka bedeli karo, de nin almost 40 jir uu yahay. marka waynu eegi Chelsea I don't think inay sanadkan ku tartami karto horyaalka, laakiin waxaan u malaynaya top 4 inay meel fiican ka soo gaari doonto. Arsenal iyadu waxba may soo kordhin weli, sidii aynu ogeyn maalintii waxaynu ugu dambeysay ay soo waday, laakiin Daniel Ceballos ayaa amaah ku soo noqon doona, 1 sano dheeraada la sii joogi doona. intii hore seasonka Ceballos on and off buu kooxda ka ahaa, laakiin markii Arteta uu kooxda ku soo daray uu ciyaartiisa bilaabay last 10-15 gameskii meel fiican buu Ceballos ka soo baxay, si fiican baan u hayay. markaa ninkaas hadduu soo noqdo sidii uu ciyaaro seasonka dhammaadkiisii meel wanaagsan buu kooxda soo gaarsiin karaa. top 4 way ku tartami kartaa Arsenal, waan qabaa inay ku tartami kartaa. Arsenal waad ku tartamaysaan top 4 idiga koobkiinu kaasoo haye, haddaad 2-3 ciyaartoy kaloo fiicanna kusoo dartaan waxaan qabaa sanadka dambe inaad maybe top 3 iyo top 2 ku tartantaan. Tottenham dhaqdhaqaaqeedu ma xuma, laakiin I don't think waxay meel sare ku gaadhay inay weli hayso ay kusoo tartantay. Liverpool Thiago weli hadal haysaa, laakiin isaguna ma socdo. Manchester City iyadu weli hadal haynteedu waa socdaan, laakiin weli hadda wax cusub oo labadii ciyaartoy hore ay la soo wareegtay aan ahayn lamay soo wareegin. markaa waan suuqa weyn ka wanahayn doonaa. Barcelona waa tan weli isku dhex daasan, Real Madrid waxba ma hadal hayso. markaa suuqa waxaad moodaa Chelsea iyo in horta Chelsea uu shidan yahay lacagtii ku baashaalayaan ay Hazard iyo Morata iyo ka heleen, iyo ciyaartoyga yarar badan ay haystaan. markaa suuqa waxaa ka soo kordha wayn la socon doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. waaga football show oo idin leh is aragti dambe oo xiiso leh.